assalaamu calaykum. Weli ma isweydiisay sababta uu qur'aanka kariimka ah uu daawo u yahay oo xanuunada lagu daaweeyo? Ma jiro qof inaga mid ah oo uu shaki kaga jiro inuu qur'aanku daawo yahay. Waa hubaal xilli ka mid ah xilliyada in adiga lagugu akhriyey oo aad ku bogsootay ama aad ku akhriday qof kaloo bukaan ah oo uu ku bogsooday. Maadaama aayadaha qur'aanka ee la isku akhriya dhammaan ayna ahayn aayado duca iyo adkaar ayna ahayn, oo aayadaha qaar ee la isku tufaa ay ku jiraan kuwa ilaahay inooga soo wariyey dad kufaara ama mushrikiina ama gaalo waaweyna hadalla ay dhaheen oo qofkii muslim ahoo hadalladaas ku dhiirida inuu dhaho uu ku gaaloobayo. Waxaan ognahay oo naqaano oon sharaxi karnaa sida kaniiniga iyo cirbadaha iyo daawooyinka kale ee lasoo saaray ee ula dagaalaan cudurka ay u dilaan cudur sababaha. Laakiin ma wada naqaanaa sida uu qur-aanku daawo u yahay. Qur-aanku waxa uu daawo u yahay inta badan cudur waxaa sababa noole oo ha ugu horeeyo